saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Filimkeennu wuxuu ka sheekaynayaa qisada Rustev oo ahaa gacan ku dhiigle aad looga cabsado iyo nin dhallinyaro ah oo la yidhaahdo Salinka. Rustevna waxaa lagu qasbay muddo 3 sano ah inuu isticmaalo gaariga curyaanka sababtoo ah naafo ayuu noqday. Dhinaca kalena Salinka maadaama uu ku dhashay naafanimada wuxuu ku qasbanaaday noloshiisa oo dhan inuu isticmaalo gaariga curyaanka. Haddana Salinka waxay qolwadaag ahaayeen wiilay saaxiibo yihiin kaasoo la yidhaahdo Barba. Salinkana wakhtigiisa firaaqada wuxuu ku raaxaysanayaa sawirro majaajila ah oo laga sameeyey asaga. Shaqadaanna waxay ahayd mid cajiiba. Wiilashaanna hadda waxay degan yihiin iskool gaara oo loogu talagalay dadka naafada ah. Goobta ayaana lagu xanaaneeyaa sidoo kalena lagu kormeeraa ayaga. Laakiin waxay haysteen fursad ay in badan ku fikiraan si ay wax cusub u soo saaraan ayaga. Qolalka ay degan yihiin dadka naafada ahna waa sida isbitaalka oo kale. Meeshaanna waxaan ka ogaanaynaa Salinka iyo Barba inaysan kala tegin ilbiriqsi xitaa. Mar walbana sawirro majaajila ayay wada samayn jireen. Wayna iscaawin jireen ayaga. Si wada jira ayayna u murugoon jireen sidoo kalena ay u wada farxi jireen. Maalin maalmaha ka midna Barba ayaa qolka ugu yimi saaxiibkii asagoo wata haanta gaaska. Isla markiina saaxiibkii wuxuu u sheegay inuu soo xaday alaabtan. Salinkana aad buu uga helay arrinta. Intaa kadibna labadooda bannaanka ayay aadeen si ay u soo tijaabiyaan shaygan. Wax yar kadibna waxay joojiyeen hawshooda. Markuu goobtan yimi Rustev sababtoo ah way ka baqeen asaga. Markuu u yimina Barba wuxuu weydiistay inuu siiyo xabad sigaara. Laakiin Barba wuxuu u sheegay inaan meeshaan laga ogolayn cabista sigaarka. Ninkaana markuu arrintaa maqlay wuu xanaaqay. Intaa kadibna wuxuu dharbaaxay Salinka. Halkaana Rustev wuxuu ka sheegay inuu horay ula shaqayn jiray debdemiska. Intaa kadibna wuxuu u sheegay carruur yaryar inuu marar badan ka soo saaray meydadkooda dhismayaal uu dab ka kacay. Sidaa darteedna hadda waxaan idiin sheegayaa gaaskan inaad dib ugu celisaan meeshii aad ka soo qaadateen. Intaa dabadeedna ninkan goobta ayuu isaga tagay. Halka Solana uu ku xumaaday habdhaqanka ninkan. Sidaa darteedna wuxuu ka daba tagay ninkaasi uu u garaaco. Si kastaba ha ahaatee Rustev maadaama uu ahaa nin aad u xooggan, dhulka ayuu si degdega u dhigay wiilka. Intaa kadibna wuxuu iska furay bacda kaadida si uu ugu shubo bulaacadda. Isla markiina Rustev wuxuu ogaaday inuu ka qaldan yahay wiilkan. Raaligelin kadibna labadan wiil ayuu marti qaaday si ay wakhti u wada qaataan ayaga. Habeenkii markay wiilashu meesha tageenna aad bay u farxeen ayaga. Sidoo kalena waxay la yaabeen cabitaanka tirada badan oo u dalbay saaxiibkooda cusub. Intaa kadibna waxay weydiiyeen inuu ganacsado yahay iyo in kale. Laakiin Rustev ayaa ku qoslay ayaga sababtoo ah wuxuu la yaabay sida ay ugu fikireen arrintan. Sidoo kalena meeshaan wuxuu ka sheegay inuu u baahan yahay dad shaqadiisa ka caawiya oo darawal u noqda. Barbina isla markiiba wuxuu ogolaaday arrinta asagoo sheegaya inuu gaari haysto. Wax yar kadibna Solo wuxuu seexday meeshaan. Rustevna isla markiiba saaxiibkii wuxuu wax ka weydiiyey arrinta wiilkan. Barbina wuxuu ugu jawaabay saaxiibkii inuu dhabarka laayahay laakiin waa dilaa aan naxariis lahayn inkastoo uu mar walba asaga ka xanuunsado dhabarka. Sidoo kalena wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo. Xaqiiqadaana Rustev weli wuxuu garan waayey inta ay gaarsiisan tahay dhibaatada caafimaad ee haysata Sola. Sidoo kalena ninkan hadda wuxuu ayaga u soo jeediyey inay ula shaqeeyaan sida gacan ku dhiiglayaashii oo kale. Meeshaanna adinka waxaan idinkaga ballan qaadayaa inta noloshiina ka dhiman inaad farxad ku wada noolaataan. Dhowr maalmood kadibna Sola waxaa la geeyey isbitaalka si qalliin loogu sameeyo asaga. Laakiin intaa ka hor wuxuu iska diiday in la qalo asaga sababtoo ah wuxuu ogaaday qarashka qalliinkan ku baxayo inuu bixiyey aabbihii. Maxaa yeelay aabbihii asaga oo yar ayuu ka tagay kadib markuu ogaaday inuu wiilkan cuuryaannimo ku dhashay. Muuqaalkeenna xigana waxaana la tusayaa Rustev oo hadda shaqo ka helay madaxdiisa. Intaa kadibna Rustev taargetkiisa wuxuu ku sugayaa meel cidlaa oo baabuurta la dhigto. Isla markiina meesha baabuur ayaa yimi. Gaariga ayaana la soo ag istaajiyay asaga. Intaa kadibna gaariga waxaa ka soo degay dhowr nin. Intaa dabadeedna way u yimaadeen ayaga. Isla markiina mid ka mid ah raggan ayaa u hanjabay Rustev asagoo midi lugta uga mudaayo. Laakiin Rustev ma uusan dareemin wax xanuuna. Meeshaana wuxuu ka sheegay lugihiisa inuusan waxba ka dareemin sanado badan sababtoo ah naafo ayaan ka ahay aniga. Sidoo kalena wuxuu ku qoslay burcadan. Isla markiina mid ka
mida burcadda ayaa laaday. Intaa kadibna Rustef wuu qufacay, sidoo kalena bac ayuu jeebka kala soo baxay. Isla waqtigaana ragga ayuu meesha ku toogtay asagoo baskoolad adeegsanaya, waxaana soo baxday inuu sidaan ku soo afjaray dhammaantood. wax yar kadibna ambalaas ayaa meesha timi, isla markiina gabar dhakhtarada oo la yidhaahdo Sita ayaa dhaawacii bowdada ka soo gaaray ka dhayday Rustef. haddana labadooda meesha ayay isku barteen. waqtigaasna aad buu uga helay ayada, wuxuuna rabay inay qayb ka noqoto safarka noloshiisa. si kastaba ha ahaatee waxay iska diiday saaxiibtinimadiisa, waxayna u sheegtay in la qabo ayada. intaa kadibna aad buu uga niyad jabay arrinta, xitaana wuxuu isku dayay inuu buundada iska tuuro si uu isku dilo asaga. si kastaba ha ahaatee niyaddu waxay siin weysay inuu isdilo asaga. muddo kadibna wuxuu ka soo kabsaday dhacdada, wuxuuna horay u sii watay noloshiisa. maalmo kadibna markuu qaatay mushaarkiisii ugu horreeyay ee shaqada, Rustef waxaa loo sheegay shaqadiisa inay tahay mid qarsoodiya, sidaa darteedna waa inaadan la macaamilin dad kale. intii lagu guda jiray wakhtigaana waxaa asaga in badan caawin jiray Sola iyo Barba. haddana Rustef dhowr maalmood kadib wuxuu la kulmay Sola intuu qalliinka ka soo kabsanaya asaga. Rustefna wuxuu u sheegay inuusan mar dambe caawin doonin ayaga, uuna joojiya la kulankooda. laakiin Sola ayaa iska diiday arrinta, wuxuuna u sheegay inuu sii wadi doono la shaqayntiisa. muddo kadibna Sola wuxuu iska diiday lacag uu doonayo inuu siiyo aabbihii, inkastoo ay hooyadii in badan ay isku dayday inay asaga ku qanciso inuu qaato lacagta. maalmo kadibna Rustef isbitaalka hortiisa wuxuu ku sugaya Sita markay tababarkeeda soo dhammaysatay kadib, wuxuuna rabay inuu ubax siiyo ayada, laakiin aad buu u niyad jabay markuu meeshaan ku arkay ayadoo la socoto saaxiibkeed. intaa dabadeedna Rustef waxaa loo soo bandhigay inuu dilo sargaal muhiima, isla markiina wuxuu qorsheeyay inuu ninkaa ku dilo maqaayadda markuu qadaynayo. sidaa darteedna ninkaa hadda wuxuu ku sugaya waddada dhinaceeda kale. dhinaca kalena Sola iyo Barba si qarsoodiya ayay ula socdeen saaxiibkood xaaladiisa, ayagoo fududaynaya qorshihiisa. Rustefna hadda wuxuu ku guulaystay hawshiisa, asagoo kaashanaya xayn shimbira iyo saxmadda meeshaan. intaa kadibna asagoo aysan ka shakin dadkii meeshaa joogay ayuu ka takhallusay sargaalka. isla markiina ilaaladii ninkaa waxay bilaabeen inay raadiyaan dembiilaha, laakiin ma uusan jirin hal qof oo xitaa ku fikiraya saddexdan qof oo naafada ah inay geysan karaan dhibaatada. isla waqtigaana saddexdooda si degdega ayay isaga tageen goobta. muddo kadibna Rustef wuxuu baska kula kulmay Sita. si kastaba ha ahaatee gabadhan waxay isaga siisay infiitada arooskeeda. Rustefna xilligaa ma uusan ogeyn maamulihiisa inuu kor kala socdo dhaqdhaqaaqiisa, maadaama uu booskiisa hadda arkay. arrintaanna aad buu uga carooday asaga, sababtoo ah wuxuu jebiyey xeerka shaqadooda. intaa kadibna markay wada kulmeen labadooda aad buu u garaacay asaga. intaa dabadeedna maamulihiisa Rustef wuxuu siiyaa hal fursad uu ku sixi karo qaladkiisa. markaana Rustef waxaa loo xilsaaray inuu dilo labadiisa saaxiib. maalintii xigtana Rustef iyo labadiisa saaxiib waxay aadeen harada si ay meesha uga soo kalluumaystaan. haddana waxay ku khasbanaadeen inay ka gudbaan beer meesha ku taallay si ay u gaaraan meesha ay u socdeen ayaga. intaa kadibna saddexdooda markay gaareen meeshii ay u socdeen waxay bilaabeen kalluumaysigooda. Barbina isla markiiba maqaalintiisa kalluun ayaa ku soo dhacay, wuxuuna caawinaad weydiistay saaxiibkii, laakiin Rustef meeshii uu ka caawin lahaa biyaha ayuu ku tuuray asaga. intaa dabadeedna sidoo kale wuxuu biyaha ku tuuray Sola. haddana wuxuu rabay inuu meesha uga tago ayaga, laakiin markuu arkay saaxiibadii oo qarqoomaya wuxuu u adkaysan waayay inuu sidaa ku sameeyo ayaga. ugu dambayntiina wuxuu gudaha u galay biyaha, sidaa ayuuna u soo badbaadiyey ayaga. markuu bannaanka u soo saarana wuxuu u sheegay arrintan inay kaftan oo keliya ay ahayd. haddana Rustef markii ugu horraysay wuxuu ku guuldaraystay howlgal loo idmaday asaga. markay ka soo laabteen meeshaana Rustef xaflad ayuu xaafadda ugu dhigay asxaabtiisa, isla markiina wuxuu u sheegay Sita iyo siduu u jecel yahay ayada. haddana saaxiibadii waxay rabeen inay ka caawiyaan sida u heli lahaa gabadha. maalintii xigtana saddex ka mid a asxaabtiisa ayaa qaaday asaga si ay gaariga u saaraan. meeshaana wuxuu ka sheegay inuu istaagi karo, uusan u baahnayn gaariga cuuryaanka. maantana wuxuu sugayay Sita intay ka soo laabanayso isbitaalka. si kastaba ha ahaatee saacado badan oo sugitaana kadib waxaa soo baxday Sita inaysan maanta shaqada imaanin ayada. dhowr maalmood kadibna wuxuu warqad ka helay madaxdiisa si uu u dilo nin ka ganacsada daroogada. meeshaana booskiisa wuxuu uga ballan qaaday in mushaarka uu u labanlaabi doono asaga. isla markiina Rustef wuxuu aqbalay qabashada hawsha, asagoo sheegaya tani inay tahay hawshii ugu dambaysay uu u qabto asaga. si la yaab lena maamulihiisa hadda wuxuu u aqbalay dalabka Rustef. intaa kadibna asaga iyo labadiisa saaxiib waxay aadeen ninkii la beegsanaya gurigiisa. intaa dabadeedna labadiisa saaxiib wuxuu u sheegay inay gaariga saarnaadaan intuu ka soo qabanayo hawshan.
ka hor intuusan gurigaa gelinna waardiyayaasha gurigaa si adag ayay u baareen asaga laakiin Rustef wax cabsiya ma uusan dareemin asaga hubkiisa qaar ka mid ah ayuuna la galay gudaha guriga intaa dabadeedna ilaaladu waxay asaga u kaxeeyeen si ay ula kulansiiyaan booskooda ayagoo u malaynaya wax walba inay ku jiraan gacantooda intaa dabadeedna Rustef wuxuu bilaabay hawshiisa markuu si face to face ula kulmay ganacsadaha daroogada isla markiina baskoolad ayuu ku taagay baskooladaanna asaga waxaa loogu qariyay mid ka mid ah barkimaha gurigan intaa kadibna meeshaan wuxuu ka bilaabay inuu toogto raggii goobtan joogay laakiin wuxuu ku guul daraystay inuu toogto maamulaha burcadan meeshii uu baxsan lahaa ninkaana baskoolad ayuu soo qaatay wuxuuna bilaabay inuu xabadeeyo Rustef meeshaana waxaan ka ogaanaynaa ninkan inuu khibrad sare u lahaa isticmaalka hubka inkastoo uu naafo ahaa asaga isla markiina wuxuu soo qaatay wiljarkiisa kadibna wuxuu bilaabay inuu fuulo si kastaba ha ahaatee wuxuu ku guulaystay inuu soo afjaro dadkii meeshaan joogay sidaa ayuuna ku qabtay hawshiisa intaa dabadeedna si degdega ayuu meesha isaga tagay markuu albaabka gaarana wuxuu maqlay dhawaaqa gaariga booliska oo meel fog ka soo yeeraya isla markiina wuxuu ku guul daraystay inuu furo albaabka weyn ee guriga intaa kadibna wuxuu wacay saaxiibadii oo gaariga saaran isla markiina Sola wuxuu joojiyay gaariga booliska asagoo mashquulinayo halka Barbina uu Rustef ka caawinaya siday meeshaan uga baxsan lahaayeen ayaga intaa dabadeedna dhammaantood waxay ku guulaysteen inay meeshaan isaga tagaan ayagoo aan la fahmin intaa kadibna Rustef wuxuu u tagay maamulihiisa si uu uga helo mushaarkiisa si ka duwan sidii horena booskiisa wuxuu asaga geeyay baqaar cidla ah markay meesha tageenna wuxuu arkay xarga meesha ka soo laalaada isla markiina Rustef wuxuu ogaaday xaaladda meeshaan inaysan caadi ahayn sababtoo ah maamulihiisa si xun ayuu ula dhaqmayay hadda meeshaana waxaan ka ogaanaynaa maamulihiisa inuu hadda ogaaday ninkan inuu khiyaanay asaga sababtoo ah saaxiibadiisii uu u diray weli way nool yihiin ayaga haddana booskiisa aad buu uga carooday in Rustef uu kalsoonidiisii khiyaanay isla markiina Rustef qoorta ayuu xarig uga xiray maamulaha kadibna kursiga curyaanka ayuu ka hoos bixiyay intaa kadibna Rustef si uu isku badbaadiyay wuxuu ku qasbanaaday inuu xarigga iska furo asagoo lugaha dhulka ku riixayo maadaama ninka uu hadda ka tagana wuxuu isku dayay inuu soo qaato wiljarkiisa laakiin kuma guulaysan arrinta si kastaba ha ahaatee dhammaan isku dayadiisii waxay noqdeen kuwo aan waxtar lahayn nasiib wanaagna daqiiqado yar kadib xariggii ku xirnaa ayaa ka dabcay si uu isku badbaadiyana isla markiiba wuxuu iska siibay xarigga markuu guriga ku soo laabtana si degdega wuxuu isugu keenay asxaabtiisa si ay aargudsi u wada sameeyaan haddana hogaamiyaha burcadda meeshaan ayuu ka fogaaday dhowr maalmood kadib dhacdadaana Rustef iyo asxaabtiisa waxay ka qayb galeen arooska saaxiibadiisiita maalintaana jaakad cad ayuu soo qaatay asaga aad buuna u soo labistay sidoo kalena meeshaan Rustef wuxuu ku soo bandhigay xirfadda uu u leeyahay heesaha dadkii meeshaan joogay oo dhanna waxay ka heleen heestiisa dadkaana xitaa waxaa ku jirtay Sita dhab ahaantiina way ilmaysay ayada intaa kadibna way shumisay asaga ninkeedana arrintaa markuu arkay wuu masayray xafladda kadibna Sita ninkeeda iyo saaxiibadii waxay weerareen Rustef ayagoo ka xun wuxuu ku sameeyay Sita intaa dabadeedna Sola ayaa halkan yimi si uu u caawiyo saaxiibkii isla markiina ragga baskoolad ayuu ku qabtay sidaa ayayna goobta uga tageen ayaga 3 maalmood kadibna Rustef weli wuxuu qorsheynayay inuu ka aarguto saaxiibkiisii dambiilaha ahaa intaa kadibna asaga iyo Sola waxay booqdeen meel uu ku dhuumanaya ninka madaxdiisa ayagoo gudaha u galaya meesha halka Barbina uu banaanka ku sugaya ayaga Rustefna meeshaan wuxuu ka cadeeyay hawshan inay tahay midii ugu dambeysay uu qabto asaga sababtoo ah ninka wuxuu ii diiday mushaarkayga si kastaba ha ahaatee booskiisa markay wada kulmeen wuxuu u diiday mushaarkiisa asagoo uu hanjabayay in eeyihiisa uu ku fasaxi doono ayaga isla markiina Rustef wuxuu soo qaatay baskooladiisa wuxuuna meesha ku toogtay hangaas oo meesha taalay arrinta darteedna eeyuhu waxay bilaabeen inay meeshaan isaga cararaan isla waqtigaana burcaddu waxay bilaabeen inay xabadeeyaan ayaga ilaa dagaal badan kadib ay xabadihii ka dhammaadeen intaa kadibna Rustef waxay isqabteen ninka dhowr jeer ayaana midi lagu dhuftay asaga isla waqtigaana Sola wuxuu gacanta ku dhigay baskoolad meesha taalay laakiin ma uusan caawin saaxiibkii burcadkaana wuxuu u ogolaaday inuu goobta ku dilo Rustef intaa dabadeedna Rustef markuu dhintay kadib Sola isla markiiba meesha wuxuu ku dilay burcadka intaa kadibna wuxuu meesha ka qaatay dhammaan lacagtii goobta taalay haddana wuxuu qorsheynayay lacagta inuu ku bixiyo qaliinkiisa si uu lugihiisa dib ugu socdo asaga sidaana hadda waxaa ku soo dhammaaday sheekada dilaagii curyaanka ahaa meeshaana hadda waxaan ka ogaanaynaa sheekadan ku saabsan Rustef inay tahay mid khiyaaliya oo ay ka mid tahay buugaagtii uu qoray
yahay Sola asaguna sheekadan wuxuu u sameeyay jilaa qiyaaliya oo la yiraahdo Rustef kaasoo ay isku egyihiin aabihiisii naafada ahaa sidiisa oo kale meeshaana waxaan ka ogaanaynaa Sola noloshiisa inuusan la kulmin aabihii kaliyana aabihii wuxuu ka haystay sawirkiisa kaasoo ay aad isugu ekaayeen Rustef waana sababta asaga ku kaliftay inuu qoro sheekadan cajiibka ah arrintaana waxay asaga ku dhiirigelisay inuu sameeyo sheekadan dad badan ayaana ka helay buuggiisa markay akhristeen sheekadiisa guul weyn ayuuna ka gaaray daabacaadiisaas ugu dambayntiina Sola aabihii wuxuu siiyey nuqul ka mida buuggiisa si uu u xasuusiyo Rustef filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna like saar sidoo kalena janalkeenna ku soo biiro subscribe waa ku mahadsantahay la joogistaada